jab xoogan ayaa soo gaaray maleeshiyaad ka soo duulay xadka Kenya. maleeshiyaadkaas oo xalay saq dhexe weerar gaadma ah ku soo qaaday qaybo ka mid ah magaalada Beled Xaawo ee gobolka Gedo. xogta ay baahisay dowladda federaalka Soomaaliya iyo muuqaalo odaysan oo warbaahintu ay ka soo tabinayaan goobaha dagaalka ayaa si wada jira u muujinaya baaxadda khasaaraha gaaray maleeshiyaadka soo duulay, iyadoo la qabtay ku dhawaad 100 maxaabiis ah oo badankoodu ay sheegeen in lagu soo khalday weerarkan, damiirkooduna uu siin waayay inay ku soo duulaan dalkooda iyo dadkooda, gaashaanna u sii ahaadaan dano shisheeye. وعسكرتي برحة وأكمل حسين مرتون. عسكرتي حقها أجرتي. ها. تيجا إنها يصير إنه ودي. مركا أي دور هذا عن قني. أيك مركا حبيت يقول بالله أنا كمش هذا أيوليش أنا كسودان يعني فهرنا. حبنا ما نريد. واحد كديجان قبل كده. صح. dadka ceel waqlaa keenata gurleena ku imaaday gurlee Abbas idin ku keenay gurleena ku keenay hadda bil iyo la faashay ka umaynaya meesha ku sugnaa ragaas markay maadnay waxaan bilanta intaan ku arkay isla joognay marka seen bari intaan caalam Jubbaland ay qarnaa intaan caalam Soomaaliya sida lagu qarnaa sagaal sano ninkaan la shaqeynay aniga oo isku nafti isku nolosha isku dhiigaanahay oo intuu gaari igu soo guray deegaan aqoon dulkeena deegaankiina aan dad iyo dan la ka garanayn maxay la tahay laba warad baatiin adoo ka jawaab hadda dhex taagan oo kale tawa saaka hadaad ku dhimato maxaad ku dhiman lahayd ehelullah inaan ahay baa sheegay saakita dagaalka oo saacado badan qaatay waxaa door muuqda ka ciyaaray shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalooyinka xadbeenaadka dalkeenu uu la leeyahay Kenya, iyagoo ka dhidhiyay xadgudubka qaawan ee Kenya ay kula kacday madax banaanida dalkeena. shacabka iyo ciidamada qaranka ayaa ugu dambeyntii soo afjaray qorshaha ay soo maleegeen horjoogayaasha dowladda Kenya ee ka soo horjeeda xasiloonida, daris wanaagga iyo midnimada shacabka Soomaaliyeed. Maxamed Muuse Tarsan, warbaahinta qaranka, Muqdisho.